Okay, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada casharkan oo ah casharkan waa casharkii labaad ku saabsanaa barashada programmeringa ee luqadda la yidhaahdo C sharp. Waxaan maanta baranaynaa waxyaalaha loo yaqaano data typeska. Data typeska marka sida aan u naqaano waxay u kala baxaan dhowr noocood. Aan wax yar aan intaanan meeshan ila fiiriyo. Data typeska horta aan baran doono sababtaan u baranayno wax kale ma aha. Waxaan rabnaa inaan kala saarno computerku waxaan u kala caddayn marka wax qorayso waxay kala yihiin. Ma waxa aad qoraysaa ma tira sida xaraf oo kale labo. Waxa aad qoraysaa ma qoraal caadi ah oo aad leedahay exaan oo kale waa qoraal caadi ah. Waxa aad qoraysaa ma decimal miya oo macnaha ma tiradan waa tiro laakiinse tiro macnaha decimal waa miya. Waxa aad qoraysaa xaraf kaliya miya sida ba kaliya. Waxa aad qoraysaa ma wax condition ku saabsan oo ah arrintani ma sax ba mise waa khalad sida loo yaqaano boolean oo kale wuu yaqaan asaga laakiin aniga waxaan leenahay hadda true iyo false baan u naqaanaa khalad ama sax. Mid walba marka magac gooni uu leeyahay. Horta ayagoo dhan waxaa la isla dhahaa waa data types waay. Laakiin programmeringana wuu sii kala saarsaaray. Tiradu hadday tiro buuxda tahay laboo kale wuxuu u bixiyey waxa la yidhaahdo integer. Qoraalka caadiga ah programmeringa waxaa loo yaqaanaa data typeskeeda string. hadday tiradu comma ay wadato waxaa loo yaqaanaa float. Ama waxaa la dhihi karaa or waxaa la dhihi karaa double mar hadday comma wadato. Hadday tahay sheekadana condition oo ay leedahay true ama false ay tahay ayada wuxuu u yaqaanaa programmering wuxuu u yaqaanaa boolean. Okay, hadday hal xaraf kaliya uu yahayna data typeska loo yaqaano wax kale ma ahan waa car. waxaan ka rajeynayaa insha allah inaad arrinta xasuustaan markaan hadda wax qorayo. Haddaan rabo tirada aan waxa aan u socdo hadday tahay xarfo integer baan dhihi doonaa. Waxaan ka hormarin doonaa int oo lasoo gaabiyey. haddaan rabo inaan qoro qoraal caadi oo macnaha aan far caadi qorayana waxaan leeyahay string. True iyo false waxaa loo yaqaanaa boolean. hadday decimals ay wataan waa float ama double iyo hal xaraf kaliya oo car loo yaqaano ama character lasoo gaabiyo waay. haddaan bilaabanaynaa marka. Okay, intaan naga tiraya kaliya kana noo soo qabo good. aan bilaabana marka. Anana kaba soo qaad intaan iska tiraya. Waxaan rabaa inaan sameeyo wax la yidhaahdo horta wax ku saabsan tiro caadi macnaha tiro caadi inaan qoro. Marka waxaan leeyahay sida caadiga ah int computerka waxaan u sheegayaa in aan rabo inaan int markaan qoro wuxuu ii fahmayaa waxaan soo wada inay tahay tiro aan decimal wadan. Okay, magac ula waxa uu leeyahay tiradaada. waxaan leenahay salary kadibna semicolon ugu dambaysiiso waay. Laynkan waxaa moodaa cagaar yar inuu soo fuulay. waxba hadda ka fikirin dib baan idinkaga sheegi doonaa wuxuu yahay sababta cagaarka u soo fuulay. laakiinse waxaan hadda isla fahnay integer oo data type ah. magacan aan la baxay anaa la baxay salary. Salary marka waa maxay? Yes, very good. arrinta laftigeeda inaan isweydiino u baahnayd. Salary magacan meeshan aan ku qoray integerka kadib waxaa loo yaqaanaa waa variable way. Okay, marka variable waa maxay? Variable runtii ma adka in la fahmo. wax kale ma aha. Computerku wuxuu leeyahay memory buu leeyahay processor. waxaad memoryga computerka ka codsan kartaa tirada aad adigu hadda sheegatay meel lagu geliyo sababtoo computerku waa inuu qabtaa soo ma. tiradaas marka si uu kugu qabto waa inaad dhahdaa computerka horta boos yar ii qabo aniga. booskaasna markaad int dhahdo oo salary aad dhahdo computerka wuxuu fahmayaa boos yar oo aad ku shubato tiro buuxda oo integer ah
ayaa lagu qabanaya markaasuu computerkuna booska oo calaamad buu magac buu siinaya si aan loo taaban korka waxaa lagu qoray salary marka mar walbo salary waxa macnaha tiro la soo geliyo computerka wuxuu fahmayaa booska aad qabatay ee salary la oran jiray ku shub okay waa ka baxayna halkan waa si fiican u fahmi doonaa markaan aan hore usii wadno ku daadaahi mayno insha allah waa ka soconaynaa aan sii wadno waxaan hadda samaystay marka data tab inta ah magacaan ula baxay waa salary hadhowna waxaan rabaa inaan wax ku shubto salary gudihiisa okay data type kale haddana qoranayna waxaan leenahay string name waxaan samaystay iyadana data type string ah oo aan ula baxay name mar walba marka booskaas aan memoryga ka qabsaday oo name la yiraahdo booskaas waxaa ii geli kara kaliya waxyaalaha la yiraahdo letterska caadiga ah sida magacyada qoraalada caadiga ii geli kara wax kale ima geli karaan haddaan hadda lambarada waa inaan meesha ku guro ama xisaab aan ku gurto xisaab lambaro way ku geli karaan laakiinse lambaro ma ahan aad u isticmaali karta xisaabaad hadda wax ku dari kartid ma aha waxaan ka soconayna data type ku xiga muxuu ahaa aan baranay boolean isaga ku caawinaya samida c sharp waxaan leenahay boolean waxaan u bixinaynaa flag waa ogtiin flag badan wuxuu qaataa plus ama wuxuu qaataa true ama false okay data type ku xiga waxa waa char wataan char soo baran char waxa waa character waa hal xaraf kaliya ba ja ha qa waxyaalahaas macnaha okay waxaan leenahay marka iyadana boos baan u qabsanayna magaciisa letter marka meel walbo aan hadhow memory ka mid ah oo aan ku shubo aan rabo inaan ku rito hal xaraf waa inaan char dhahaa si memory u fahmo inaan halka xaraf soo wado halka xarafna booska la gelinayo waxaa la yidhahdaa letters okay double okay magaca marka qasam maaha inaa ula baxda name ama flag ama salary magaca doonta ula bixi kartaa waxaa muhiim ah kaliya inaad qeexdo data type ku noqon doono halkaas si aan loogu khaldamin rate oo kale saa ula socotaan rate sicirka caadiga ah ee rateka caadiga ah dollarka marka laisku sarifay oo currency kale waa ogtiin waxay noqotaa badanaa xarfa caadi noqdo waxay noqdaan decimals sida kaba soo qaad maanta sicirka waxaa laga yaabaa inuu yahay 10.257 marka maadaama rate waxaan halkan double u yiri maadaama rateku badanaa decimal u qaataa oo double wataan soo sheegnay badanaa waxay qaataan decimals very good okay ay la socotaan rajaynaya waa sii wadaynaa hawsha okay ana waqtiga ku dheereeya ma ahan waxaa noogu xiga declaration kala sameynaynaa iyadana ah sidoo kale darna string markaas waxaan sameyn karnaa dhowr meelood ayaan ka qabsan karnaa memoryga sida last name waxaan dhigi karnaa boos kale noo qaba in la dhaho first name waxaa kaloo noo qabataa boos kale oo la yiraahdo middle name okay fahmaysa halkaas macnaheedu waxa weeye halkan waxaan u sameynayaa si inaan ugu khaldamin markaa rabta inaad variable badan samaysto hal mar baad wax data type sheegi kartaa kulligood marka waxay is daba dhigaysaa saas u daba dhigaysaa si ay u noqdaan same data types halkan marka waxaan soo baranay maanta dhowr data types integer oo aan xarfaha caadiga ah string qoraal caadiga boolean of flagska macnaha false iyo true char oo hal xaraf ah double oo aan waxaan u isticmaalaynaa marka aan ka hadlayno decimalska xarfaha wata iyo string aan si hadda idin sheego qoraalka caadiga ah casharkeena ku xiga marka ayaan si fiican isticmaalkooda u badin doonaa maanta waxaa muhiim jiddan intaa inaad fahantaan integer string boolean iyo characters waxaa noo dhiga marka inaan fahno integer xarfaha buuxa ayuu qaabilsan yahay laakiinse waxaanu ka hadli doonaa marka dambe ilaa imise xaraf ayuu qaadaa integer sidoo kale double imise decimals ayuu qaadaa taasna waa noo imaan doontaa waa mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu